ku garab istaagaan xabadda marka waa ku garab taagannahay qodobo aan hadhow u sheegi doono aan rabo inay ku dhaqmaanna waa qodobka labaad oo aan keeni doono turkigu Egypt markuu maqlo wuxuu ka shakisan yahay imaaraad inuu ku lamaan yahay labadaas oo isla socdana lama tuso marka iyaga laftigoodu inay isdhaafiyaan oo degdeg ay Soomaaliya Itoobiya u heshiiyaan Itoobiya aysan ka bixin xuduudda Soomaaliya rabitaankooda way qodobkaas intaasaan ka oran qodobka labaad waxaa jira xeerka caalamiga ah ee badda waxaa la yiraahdaa UNCLOS waxaa kaloo jira heshiis waayadan dambe la sameeyo la wadwado xasan sheekhna aan uga digay hadda ka hor white paperskii ingiriiska maalintu saxiixay aan ilaaha saxiixin madaxweynuhu ayaa caqabad hor taala xasan sheekh maxamuud xasan oo warqad alla warqadii ajnabi hordhigo iska saxiixaya baa la yiri waxaa lagu qabanayaa shir kaliya iyo Rishi Sunak oo prime ministerka ingiriiska baad saacad kaligiin wada fadhiyeysaan iyo gabar ka socota imaaraadka oo wasiiro environment-ga haysta xasan jilbuhu isla dhacay waxa la waxay hordhigeen buu saxiixay warqadahaas white paperka waxaa ku jiray oo lagu saxiixay food security agreement ama heshiis Soomaaliya ay la gashay internationally caalamka sida qaxootiga loo aqbalo ay Soomaaliya aqbashay inay ka mid tahay xeerka food security xeerkaasu wadamada landlocked-ka wuxuu siinayaa xuquuq haddii ay sheegtaan famine ama abaar iyo macaluul iyo gaajo xaq bay u leeyihiin dalkii saxiixay oo bad lehi inuu u baneeyo si ay baddaas baahidooda ugu daboolaan marka inuu yiraahdo 120 milyan baan nahay gaajaana nahay ku celceliyo qodobkaas ayuu xiganayaa oo tiigsanayaa waxaan kaloo qodobka labaad uu yahay xeerka badda UNCLOS haddaad dhegaysateen wasiirka arrimaha dibadda Turkigu kelmadda uu isticmaalay waxay ahayd in wuxuu kula taliyay labada wadan wuxuu isticmaalay hadallo waafaqsan xeerarka caalamiga ee UNCLOS xeerarka UNCLOS maxay yihiin horta bal aan iyaga laftigooda dib ugu laaban xeerka UNCLOS wuxuu siinayaa wadamada landlocked-ka xuquuqdaas oo ku xiran heshiis iyo wada hadal iyo saaxiibtinimo ka dhaxaysa iyaga iyo cidda badda ka xigta Itoobiya waa ku feelgarowday waana waxa hadda ay raadinayso in kala shaqeeyo Turkigu in Soomaaliya iyaga cilaaqaadkooda la soo celiyo wanaagsana haddii cilaaqaadkaas la helo oo si wanaagsan loo wada dhaqmo maxay heli karaan 3 xaq ayaa caalamku siiyay wadamada landlocked-ka oo badda laga xigo kow waa xaqa koowaade bini aadamku si u dhan yahay wuxuu leeyahay xuquuq la yiraahdo common heritage of mankind taasoo laga suurtagelinayo freedom of the high seas badweynta international waterska la yiraahdo oo economic zone-ka ka shaysa badna waa territory-gaaga koowaad tan ku xigtaana waa economic zone ama EEZ waxa la yiraahdo midda saddexaad oo shishana waa international waterskaas wadamada caalamka ka jira oo dhan baa u siman wadanku marka isagoo landlocked buu lahaan karaa ciidamo bad wuxuu lahaan karaa qalabkii badda wuxuu lahaan karaa maraakiibtii iyo dooyihii iyo kulli buu lahaan karaa baddaas gaas buu kala soo bixi karaa macdan buu ka qodan karaa kalluun buu ka daban karaa badweyntaas internationalka wuu mari karaa si xora xuquuqdaas koowaad wuu leeyahay labo xaqa labaad oo ay siinayso xeerarka caalamiga ahi waxa weeye waana hadday heshiis la yihiin cidda ka xigta badda waa access to and from the sea inay u gudbaan kana soo gudbaan badda oo ay dhex maraan wadankan la yiraahdo transit state wadankan la dhex maro transit state la yiraahdo in ay xaq u leeyihiin inay siiyaan hadday ku heshiiyaan shuruudahana uu dejinayo wadanka badda iska leh uu dejinayo shuruudahaasna ay aqbalaan heshiiskooda iyo wanaagooda iyo wada noolaanshahooduna uu macaan yahay xaqaas labaad oo ah access to and from the sea
bay xaq u leeyihiin oo la siinaya xaqa saddexaad waa freedom to transit xaq bay u leeyihiin inay dhex maraan waddankan hadduu oggolaaday oo shuruudihii maray kadib inay oggolaadaan hadday shuruudihii fuliyaan xeerkaa isaga ah wuxuu ku qeexan yahay oo ku qoran yahay unclos beijkooda qodobka wuxuu ka bilowdaa unclos party x xeerkaasi wuxuu ku qoran yahay oo ku sharaxan yahay party x unclos provisionka loo yaqaan party x waa article 124 ilaa article 132 article 124 ilaa article 132 dadka Soomaaliya uga qaybgelaya shirarka waa in la baraa ay yaqaaniin loo xulaa dad yaqaan xeerarkaas iyo dhaqankooda oo looyaro ah oo badda garanaya waa in loo xulaa oo ay wasiirka dhinacyada ka fadhiyaan oo haddii wax loo hoosgeliyo ay u sheegaan oo wax walba oo laga wada hadlayo uu noqdaa arrin sensitive ah ummadda Soomaaliyeed meel ay joogtaba waa inay garab istaagtaa dowladda iyo wafdigeeda uga qaybgelaya shirarka haddiiba ay dowladdu diiday inay ka baaqsato shirkaas oo aan daruuri ahayn oo ay rabto inay soo celiso wada xaajoodkii iyo wada noolaanshihii iyo saaxiibtinimadii Ethiopia ay soo celiso hadday rabto waa inay ku gashaa marka si aqoon iyo wadaniyad ku dheehan oo aan dalka la dayacayn dadkaas maamul goboleedyada jooga oo jilcinaya dowladdana waa in ummaddu meel uga soo wada jeensataa una aragtaa inay dalkii bixinayaan min xaysu laa yashcuruun soomaalida marka laga soo gudbo dowladda turkigu maxay rabtaa dowladda turkigu Ethiopia saaxiib bay la tahay safaaraddii ugu horreysay bay ka furatay xilligii Cusmaaniyada laga adkaaday oo la burburiyey Ethiopiana safaaraddii ugu horreysay Afrikaan leeyahay oo Ankara ku taallay leedahay hadeer maalgashi aad u tiro badan oo billions ah bay geliyeen ma rabaan Soomaaliyana potential weeye East Africa albaabka laga galiyo waa Soomaaliya ila Ethiopia waa la lookin Soomaaliya waxay uga muhiimsan tahay Ethiopia Turkiga in badan laakiin Soomaaliya waa inay garataa waa inay ogaataa waa inay taqaanaa kalimaadka uu isticmaalayo wasiirka arrimaha dibadda oo ah waxaan u baahannahay oo aan kala hadalnay Soomaaliya iyo Ethiopia in la helo oo loo garantii gareeyo Ethiopia dhaqdhaqaaq ay ku tagto badda ayna kaga timaado Soomaaliyana ku dhex marto waa hadallo saxa oo waafaqsan sharciga macnaheedu maaha bad in la siiyo ma uusan dhihin xeeb ay leeyihiin ha la siiyo waxay leeyihiin access to and from the sea waana inta ku qoran ma garanaysaa unclos oo xuquuqda ah oo ay leedahay wadamada landlocked-ka laakiin shardi baa ka horeeya waddankaas aad dhex maraysid isagaa wixiisa iskale hadduu kuu diido uusan ku rabin khasab ma jiro cid ku khasbayso caalamka joogtaa ma jirto oo dhihi karta ilaa hala siiyo adigu waa inaadan heshiisyo balaa iska wada saxiixan adigu waa inaadan iska hor imaan oo aadan iska daba socon oo hadba meel u socon oo sidii carsaanyadii meelaa u socotay iyo meelaa ka socota la garan waayin waa in lagu yaqaanaa xornimadaada hadalka ay ku celcelinayso Soomaaliya waa ma garanaysaa independency-ga iyaga iyo territorial integrity-ga ha qirto ma Ethiopia uga baahan tahay inay kuu qirto caalamka oo dhan baa kuu yaqaan 1960 baad xorowday ma Ethiopia wax ka galeen Ethiopia dhul Soomaaliyeed bay haysataa maxay u qiraysaa territorial integrity of Somalia seebayse u qiri kartaa iyadoo Soomaali galbeed haysata marka dowladdu waa inay homework-eeda samaysataa unclos waa in la akhriyaa article party 6 provision party x qodobada 124 ilaa 132 waa in la akhriyaa si gaar ah waa in isha loogu hayaa waa in dad yaqaan loo xulaa waa in la iska celiyaa nimankan access Ethiopianka wasiirkooda arrimaha dibaddu shirki jaraa'id oo qabtay waxaa ku jirtay waxaan rabnaa dependable access to and from the sea ma aha bad baan rabnaa in la siiyo uu isbedelay wuxuu ogolaaday ku hadlay xeerkii uu wasiirka arrimaha dibadda Turkigu ku hadlay
oo ahaa xeerarka UNCLOS buu isaguna ku hadlay waxaa ka cad inuu isbedelay oo aqbalay sharciga caalamkana uu tusayo inuu waxa uu raadinayo taa wax caadi ah laakiin waxaa ka khaldan oo ka dhiman ma xoog baa ku helaysaa waxaas ma Soomaaliya haddaysan ku rabin baad heli kartaa waa may Soomaaliya marka waa inaad baridaa waa inaad raali gelisaa waa inaad walaalayaal raali ahaada tiraahdaa waa inaad apology bixisaa publicly international community-gana waa inaad tustaa ama UN-ta heshiiskii aad gashay nooca horta ahaa qoraalkiisii waa inaad gudbisaa apology waa inaad ka bixisaa xataa magdhowna waa in lagu xukumaa kadib si aysan dib dambe ugu soo noqon oo aysan qadiyadda u soo gelin intaasaan odhanayaa billahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh